أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحالي هذا ياسين ماحي معلن وحان دقنا ودن كان سويدن وحان صوق على يكون سقال بقول يا سقاشن كي لو سنة كدب أيان شرعي هلاي مكان شرعي هلاينا وحان خرؤسي وتي وحبر شديدي كدبنا وحان كسو شقي عن شقالة كنقضي dugsiga sare ee magaaladan Katarina Holland ilaa iyo 10 sanadood ayaan ku shaqeynaya senior teacher kadibna waxaan 2006 aan ku biiray saldhigga booliska aan u shaqeynaya 2 sanadood 2 sano kadibna maaragtay oo 2009 ama 2008 aan noqday coordinator and information officer oo aan ku shaqeynayo ilaa xaadirka 1998 ayaan waxaan ku biiray xisbiga social democratiga isla markaasna waxaan soo galay oo aan xubin ka noqday baarlamaanka degmada 1999 ama iraade 2002 waxaan isla markaasna aan ka mid noqday baarlamaanka gobolka waxaan 2006 isku soo sharaxay baarlamaanka qaranka aniga oo iskuulista aan ahayn prime ministerka wadankan u talin jiray Göran Persson kadibna waan ku guul dareysanay xisbiga social democratiga inuu wadankii sii hogaamiyo xisbiga kale ayaa wadanka hadda la wareegay 4 sano kadib doorasho ayaa dhacdo hadda waxaan musharax u ahay baarlamaanka qaranka wadankan Sweden waxay doorashada dhacaysaa 19 September 2010 rajadeyda aad iyo aad ay u wanaagsan tahay inaan xubin baarlamaan ee wadankan Sweden aan ka noqdo sidoo kale waxaan aasaaснay markaan dhibaatooyin aad u tiro badan aan halkan kala kulanay xisbi la yiraahdo xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed Somali Social Unity Party SSUP oo xiriir qaas ah la leh xisbiga social democratiga ah dhibaatooyinkaas oo Soomaalida haysato oo ah maaragtay sharcigii in ummadii lagu dhibo dhalashadii Sweden oo ay 8 sano qaadato markii loo barbar dhigo dadka kale ee ajaanibka ah sida qaxootiga kale ee meeshan soo degay 4 sano ay ku qaataan anagana 8 sano ku qaadanaa sharcigii oo dadkii maaragtay laga soo daahinayo sanad iyo 2 sano ay iska sugayaan arimahaas iyo sharci maxaa la yiraahdaa shaqo la'aanta maxaa la yiraahdaa cunsurinimada iyo arimahaas oo dhan ayaa maaragtay anaga dib nagu haayo sidaas aawadeed ayaan barnaamijyadan u sameynay mid ay arimaha SSUP iyo xisbiga midnimada bulshada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa Soomaaliya in laga baxo qabiil oo la aado ideology ama afkaaro lala yimaado arimahaas ayaan nagu dhaliyay ayadana sidoo kale oo mustaqbalka fog inaan Soomaaliya xisbiga aan geyno oo aan ka baxno barnaamijyada hadda aan ku jirno sida aad ka warqabtaan Soomaaliya waxay u baahan tahay multi party system xisbiyo badan loo tartamayo qof walbaba iyo codkiisa marka waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeedna horumar wanaag barwaaqo iyo in laga baxo barnaamijyada hadda aan ku jirno oo 4.5 ah waa arkaysaan 20 sano kaliya ayaan halkan joogaa waxaan u sharaxanahay dawladdan wadankan Sweden aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.